midowga Afrika ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka golaha wasiirada Djibouti ra'iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliya dhammaan gudoomiyaashii hore iyo ra'iisul wasaarayaashii hore dalka xayato u qaybsanaha arrimaha qaramada midoobay dadka sharafta badan oo ka soo qayb galay halkan oo ka mid yihiin duubabka iyo odayaasha dhaqanka mas'uuliyiin hore dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ma iloobin jaamacadda carabta iyo OIC intaas markaan ka gudbo fursad weyn ii tahay iyo sharaf inaan ka soo qayb galo munaasabadan qaaliga ah qiimiga badan dadka Soomaaliyeed maxay ahaato walaalahooda reer Djibouti oo hogaaminayo madaxweynaheena Ismaaciil Umar Geelle cimri dheer caafimaad Allah siiyo oo ku garab istaagay oo ku joojiyay dhiigii daadanayay qaybsanaantii ku soo celiyay dawladnimadii iyo qarannimadii Soomaaliya madaxweyne adiga iyo dawladdaada iyo shacabkaaga aadankaaga mahad celinaynaa ma iloobin marmada madaxweynaha oo runtii mar walba iyaduna la garab taagnay dadka Soomaalida ah walaalnimo run ah intaas markii aan ka gudbo dhamaanteen arrintan way xasuusinaysaa sida ay muhiim u tahay dadku inay wada hadlaan Soomaaliduna dhaqaana waxay u leeyihiin markay mushkilad xalinayaan inay wada fariistaan kala eed sheegtaan iscafiyaan kadibna xalka aadaan waa taastii ka dhacday processkan sababta oo muhiimka u ahayna wuxuu ku dhisnay wada hadal iyo walaalnimo dhab ah oo hogaaminayaan dadka dhaqanka waxgaradka aqoon-yahanka siyaasiyiinta taas ayaa keentay maanta inuu halkan soo gaaro haddaan wax yar u jaleeco arrinta uu ka dhawaajiyay ninka la yiraahdo Yusuf sida ay la socoteen dawladda ku maalgaarka oo hogaaminaya Cabdullaahi Yusuf annaga dawlad ahaan isuma haynin dawladnimo uga ma soo horjeedin waxaan ka soo horjeednay joogitaanka ciidamada Itoobiyaanka taas waxaan naga la mid ahay dadka Soomaalida meel ay joogaanba waxaan naga la mid ahay dawlado fara badan kadib waxa loo arkay inay haboonta in la wada hadlo laguna qanco in la qaado tilaabo keeni kara ciidamada Itoobiya inay baxaan dadka Soomaalida heshiiyaan dawladna wada dhistaan madaxweyne Ismaaciil khayr Allah siiyo markii aan tagnay meesha la yiraahdo Nairobi oo UN-ka iyo safiiradii meesha jooga aan ku heshiinay arrintaas waxaan dooranay Djibouti inay noqoto meesha lagu wada hadli doono annaga markaas base waxa noo aheeday Eritrea Asmara halkaan aan nimiday waxaan xasuustaa shirkii ugu horeeyay wafdiga aan soo dirnay waxa adkaatay labadii wafdi inay wada degaan hotel waa adkaatay laakiin waxay ku soo dhamaatay hal xukuumad oo hal madaxweyne leh oo hal ra'iisul wasaare leh oo hal baarlamaan leh oo ay ku wada jiraan labadii group ay ku soo dhamaatay xukuumaddaas waxa ra'iisul wasaare ka ahay Umar Abdirashiid waxa ku jiray dadkii dawladdii Cabdullaahi Yusuf madaxda ka ayaa ku jira waxa la wada dhameystay idoo la isjecel yahay Soomaali la yahay dawlad laga wada shaqeynaa ayaa la dhameystay falillahi alhamdu marxaladaas waxa suurta galay in la dhameeyo dastuurka marxaladaas waxa suurta galay in doorasho lagu qabto magaalada Muqdisho oo halkaan aan ka ballan qaadnay marxaladaas waxa suura gashay ciidamadii argagixisada shabaabkii magaalada Muqdisho in laga xoreeyo iyo meelaha maxaan ku yiraahdaa ku dhadhow doorashadii dhacday in natiijadeeda la aqbalo oo si wanaagsan loo wareejiyo madaxweyne xasan lagu wareejiyo ayaa ka dhacday meeshaas waxay ahaaday tilaabo wanaagsan oo loo qaaday dhinaca wanaaga arrintaas fadligeeda sharafkeeda wanaageeda madaxweyne Umar iskale madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle waxa iskale raba shacabka reer Djibouti in aadna soo xasuusisaan maanta aad ugu mahadsantihiin dadkii ka soo qayb galay ee ka shaqeeyay arrintaas ee ama reer Djibouti ahay ama Soomaali ahay ama cid kale ahayna waa ku mahadsan yihiin safarkeena nabadda iyo dawladnimada madaxweyne ma joogsanayo sida aad aduguba hore uga dhawaajisay waa sii socod doonaa waxaan filaynaa Ilaahay idankiisa mar dhow ishaadu inay ku qabowsato Soomaaliya al-shabaab xurka ah Soomaaliya gacmaha ay haysata Soomaaliya barwaaqo ah adiga iyo inta jecel Soomaalidan ku qabowsataan waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مدحنا شرفت له شعبك الصومالي دي جيبوتي ما أنت وحن حسينا سنة جوردي شنية لبعتمات إيجادي سعد كي نبدأ يا عرتا تاريخ وين أو كحسن نولش إن قرنمو أنا جو مناسبات دان فرحة له كهد ليه وحن سلام الدريا مدحوينها جمهورية جيبوتي شعبك جيبوتي مدحوينها الصومالية يجودهان شعبك الصوماليات وحن سيدو كلا سلامية سياسيين تي كقيب قال الشركة عرتا حبناها بلشاد الريتكا أنيقو أدعينيه كوين نغيريودي إن إلهي أنحريستو وحان سيقارة أمهد علينيه ciidankii ammaanka ee Jabuuti ee si daacadnimo iyo dadaal leh u hubiyay amniga yagii intii uu socday shirkii nabadeed iyo intaan ahaa madaxweynaha Soomaaliya waxaa sharaf iyo xusuus gaar ah ii ah inaan ahaa madaxweynihii Soomaaliyeed ee lagu doortay shirkii Carta shirkaas oo ahaa mid taariikhi ah oo horseeday dhalashada jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya magaalada Carta shacabka iyo hoggaanka Jabuuti gaar ahaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxay muujiyeen garab istaag iyo walaaltinimo dhab ah halgankoodii iyo halkudhegoodii ahaa Jabuuti xoogani waxay la mid tahay Soomaaliya xoogan wuxuu noqday calaamad muujinaysa xiriirka iyo walaaltinimada aan la leenahay reer Jabuuti shacabka Soomaaliyeed weligood ma iloobi doonaan saacadihii maalmihii iyo habeenadii lagu bixiyay sidii nabad loogu soo celin lahaa dalkeena hooyo shacabka Soomaaliyeedow safarkeena nabadeed uu dheeraa wuxuuna ahaa mid adag tan iyo markii uu dagaalkii sokeeye qarxay 1990yadii waxaa jiray dadaallo iyo shirar badan oo lagu doonayay in la heshiisiiyo dhinacyadii diriray balse badankoodu waa fashilmeen si kasta ha ahaatee markii aan go'aansanay in geedi socodka nabaddu uu noqdo mid ay hoggaaminayaan Soomaalidu aanan doorannay Jabuuti inay noqoto goobta shirka hoggaanka Jabuuti wuxuu garab istaagay arrintaas wuxuuna adeegsaday dhammaan awooddiisii si uu u xaqiijiyo in nabaddu ay noqoto mid Soomaalidu leedahay oo Soomaaliya ay hoggaamiso الحمد لله dadaalkii wuu miro dhalay taariikhduna way diiwaan gelisay guushaas maanta waxaan xasuusanahay in geedi socodka nabadda Soomaaliyeed uu muhiim yahay isla markaana uu guulaysan karo marka Soomaalidu ay isfahmaan oo ay iscafiyaan waa inaan ka tanaasulnaa qabyaaladda iyo fikradaha kale ee noo horseeday burbur iyo murug waxaan ku boorinayaa dhammaan madaxda Soomaaliyeed culimada bulshada rayidka ah haweenka iyo kooxaha kala duwan inay xusuustaan halgankii iyo nafhornimadii lagu gaaray nabadda gabagaba ahaan waxaan mar kale u mahad celinayaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha shacabka Jabuuti iyo dhammaan intiina garab istaagtay aan gacmaha isqabsanno oo aan Allaheen barinno inuu ilaaliyo dalkeena Soomaaliya inuu ka dhigo dal barwaaqo ah oo nabad ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wabillaahi tawfiiq wixii aan oran lahaaba
ولا يري وحيري خير الله السيو وإسلا شوقني أسقى هذا الكيشيء وحن رباه رتينا إراهده الحمد لله رب العالمين إلهي أنا الحمد نقنه كل جيو مركان أرتنمت يمانتي لبدا أنكلنا هاي أرتم مركان نمت دولة ما أنا اللهين وأنا لديدي أجنبي وانوه الشيئين ملبان لك مري نرى مر بين إن دولة ديالنا إن دولة نقنه إسماعيل عمر قال إلهي بانو صدري مركو تجي قرمد مدوبي وكهضلي أننا إن الله أنت يدي قلبي جودو ولي نورا أو الدولة مربتي أو أنا هين وحن سمي سني أنا برشاد الرئيد كاسمي سني مدحوينا حسن شيخ برشاد الرئيد كهان إسكولة شرني أنا قلنا وحن استاجني مركبة إن إذا عدها لو هذا الني هم بريوين بنبحني ضدك يورن نمانكي قرية هايستوى كرمرني وانا كأتكادنو ألا وانا كأتكيسي أيضاً رالي نو أهين هل كان مركان نمد وحان ربعين أن ضدك أشيغو مالين بواسي مركان نمد جبوتي دان مانتي آن جوغنو أو قروح دان له أو سان جبوتي ما أهين إلهي عمرقي سهنور ديريو مدحوينها هي مروده مال ان مروفي نين ان مروفي عن كدنبين وحالي وحبا ما إلهي مروده هنود دايو وحان ربا إنان إراهدو وحي آن هالكان كو أرقني عرضو سان ما أهين دادكو وحما هيسن دادك شعبك أو مساكينتا wuxuu noo keenayay markay ugu soo dhacdo si kala noqda aanay noo keeneen xoolay noo keeneen wax walba noo keeneen gudahana magaalada madaxdana waa noo kaga soo dhiibi jiray waxaan aragnay marka dad mabda bay lahaayeen annagayna jeclaayeen dawladnimadeeda ay jeclaayeen intii aan joognay meelna uma aadin 2 sano iyo wax caruurtaydi ma aadin خير الله السيو ساعد أضاقيقنا وحو إيدايي إنا نشوغو وحن مدحوينها وغاهم بليينا هيا وزيركي أرماها الدبادة وحي إيقو يارين رئيس وزارة ساعد بي عزومين أو هل كانين ساتمان إنو تشوغو أو نسارقنو شقلاسنا أنا إيقبتين خير الله السيو waxaan rabaa marka inaan u soo laabto maxaan Jabuuti ka hor haysanay maxaan se kadib helnay dawladnimo micno leh Jabuuti aan ku helnay madaxweyne la doorto oo annagoo dhani dooranno oo aan qabiil lagu dooran baan ku dooranay madaxweyne Cabdiqaasim baan dooranay khayr Allah siiye oo madaxweyne aad u fiican ahaa waxyaalaha aan aad ugu xasuusanahay waxa kamid ah dawladii markii حمر للتجي مسين يا أنا إلى السعودية يا إدارتي ضد كي معناها لها أو وحي قاني أو أسجى كسر كذا كوا كمدي بوزير كرجي عبد القاسم خير الله السيو إلهي عافي مادي عمر الأربع هالسيو شقدا سنوقفتي أرنت كلام ربه إن الإرادة وحي تاعي أنه مال والبقون تجنو دولتنا ما حل كان إنه رئيسي أنا بشرك عالم كان لي وعسومة مال والبقون تجو وحن وركة يكوب باللعبة ونكشجع عرتا يقعد وحن يدين قلي تاريخ ذات قشين عرتا تاريخ ذا يقشي عرتا تاريخ ذا يقشي بوقت اللقرة هينا والوقر الدونا المها يجا يريرنا ماشان مدح وين أدنوصة ميسي وكان الدونا سأي وقعتان سأي وأركان ماشى الله صومري ومهدسنتهن كريه وحن أرانا هيا أيدين كان مال بدنا جيسانه إلهي دين معليه هريها أيدين دقو أننا واوذا شوقنا ما أنت واوذا فرينا مدحوينها يجي حسن شيخ واشوقا
madaxweynaha yagii hore oo waa joogaa sheekh shariif waa joogaa ra'iisul wasaarayaashii waa joogaane aan annaguna dib isugu noqonno wax waa nala taraya war annaguna aan wax istarno aan shaqo qabsanno madaxweyne xasan waxaan kaa codsanayaa anigu xil ma rabo siyaasad waa ka baxay dowladnimaan rabaa soomaalinimaan rabaa madaxweyne shaqo nala qabo waa kuu taagannahay adaa madaxweyne noo ah waa mahadsantihiin